gudoomiyaha chief of ismaamulkan Garissa Mr. Yusuf Ali Abdi oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa kulamo la qaatay saraakiil ka tirsan laamaha booliska ee mas'uuliyiintooda ugu sareysa. Waxa uuna kulan xafiiskiisa maantadan kula qaatay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Mr. Gilbert Musengeli. waxay ka wada hadleen arrimo fara badan oo khuseeya ammaanka magaalada tan Garissa. howlaha ay hayaan saraakiisha booliska ismaamulkan Garissa in loo baahan yahay xarumo kale oo kordhina in loo dhiso booliska ismaamulkan Garissa gaar ahaan kuwa magaalada si ay wax kaga qabtaan ammaanka magaalada. Mr. Yusuf ayaa dhanka kale waxa uu u sharaxay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska dalka Mr. Gilbert Musengeli xaaladihii ugu dambeeyay ammaanka magaalada tan Garissa. waxa uu xaqiijiyay in ammaanka magaalada uu soo hagaagay bilihii la soo dhaafay kadib howlgalo ay sameeyeen ciidanka booliska oo kaashanaya saraakiisha laamaha amniga iyo arrimaha bulshada u qaabilsan dowladda isagu uu hogaamiyo loo yaqaano chiefafka. dadka aqoonta u leh Chief Yusuf ayaa aalaabana ku amaana wax qabad wanaagsan iyo inuu yahay shakhsi howlkar ah arrimo fara badanna oo dhanka ammaanka magaalada tan Garissa sidoo kalena wax ka soo qabtay.